adduunka haddii qof kasta fahmi lahaa khaladkiisa iyo xumaantiisa uu ogaan lahaa dhibaatada uu naftiisa iyo dadka kaleba uu ka galayo qof xunba lama arkeen. laakiin dhibka ina haysta ayaa ah kan xumaanta sameynaya, kan xaasidka ah, kan cuqdada qaba, kan caasi waalidka ah, kan faafinaya fiidiyoyada xunxun, kan baraha bulshada usoo galaya inuu xumaan sameeyo ama ku faafiyo, kan cibaadada ku adag tahay, kan waqtigiisa bilaa micno darada ku luminaya. dhammaantooda mid kasta wuxuu haystaa marmarsiyo, wuxuuna isku haystaa inuu saxan yahay. ma ka dhaadhicin kartid waxa aad samaynayso waa qalad. kusoo dhawaada muuqaalka maanta. magaciga waa Khaalid Cali Guuleed. fadlan muuqaalka inoo la garee, mahadsanid. aan si ambaqaadno muuqaalka. laakiin balka waran haddii aynaan si toos ah ugu diidin xumaantiisa ee halkii aan ku nici lahayn ama ku canaanan lahayn aynu si degan usoo dhaweysano, ugu sheegno khaladkiisa, u fahansiino saameynta ay leedahay, iskuna dayno in dhanka wanaagga ah wax ka tusno ama ugu sheegno. ugu dambeyn hadalkii ugu dambeeya ayaa ah yaynan ku nicin qof xumaan uu ku dhex jiro ama uu qalad uu sameynayo. waxaa laga yaabaa in hal erey aad ku sheegto in uu kusoo hadeysmo ama uu kusoo waansamo. qof kasta wuxuu jecel yahay inuu helo qof saxa oo wanaaga tusa. muuqaalkan intaas ayuu inooga eg yahay. tan iyo muuqaalka xiga, sidaas iyo nabadgelyo.